Maroodiga, oo saynisyahanadu ay ku daraan qoyska Elephantae, waa xayawaan ku nool bariga laguna garto faantiisa dheer iyo madax weyn oo dhaga ballaaran leh. Midabkiisu waa cawl iyo buni isku jira, timihiisuna sidaa uma sii badna. Waxaa lagu sheegaa inuu yahay noolaha labaad ee dunida ugu weyn marka laga reebo nibiriga, sidoo kalena waa noolaha koowaad ee ugu weyn markay timaado bariga. Maroodigu wuxuu ku nool yahay meelo fara badan oo dunidan ka mid ah, waxaana la sheegaa inay u badan yihiin qaaradda Afrika iyo Aasiya. Taariikhyahanadu iyo sidoo kaleete saynisyahanada waxa ay sheegaan maroodigu inuu laba u kala baxo, mid cad oo ku nool qaaradda Aasiya iyo sidoo kaleete mid madow oo ku nool qaaradda Afrika. Haddaba nooca ku nool qaaradda Afrika ayaa la sheegaa inuu ka xajmi iyo quwad badan yahay midka ku nool qaaradda Aasiya. Maroodiga gebi ahaanba waxa uu quutaa dhirta oo wax hilib ah ma cuno. Maroodiga ku nool dhulka cawsleyda ah ee qaaradda Afrika waxaa la sheegaa culays ahaan inuu gaaro 8,000 oo kiilogaraam, halka dhirirkiisana uu inta badan gaaro 3 ilaa 4 mitir. Haddaba waxaan kula wadaagayaa 24 shay oo uu maroodiga ugu duwan yahay xayawaanada kaleete. Midda koowaad, maroodiga walow uu yahay xayawaan aad u culus, haddana waxaa la sheegaa biyaha marka uu galo inuu jecel yahay inuu aad u dabaasho, sidoo kaleetana uu biyaha dul sabayn karo oo wax dhibaato ah aysan ku lahayn ilaa wax ka xajmi badan uu la kulmo mooye. Qodobka labaad, maroodiga dheddigga ah waxaa la sheegaa ilaa 50 sano inay dhali karto oo labadii sanaba mar ay dhasho. Aad ayayna u adag tahay inaad aragto maroodi mataano dhalay. Maroodigu hal cunug ayuu dhalaa inta badan. Maroodiga waxaa la sheegaa inuu aad u caqli badan yahay oo weliba uu awood u leeyahay inuu ogaado waxyaabo fara badan sida aadanaha oo kaleete. Marka ay timaado inuu xusuusto wax hadda ka hor ku dhacay ayaa waxaa la sheegaa inay u fududahay oo sanadyo kadib uu dib u soo rogaal celin karo. Qodobka afaraad, walow maroodiga uu halis ugu jiro inay ugaarsadaan dadka ugaarsiga sharci darrada ah ka wada kaymaha waaweyn ee qaaradda Afrika iyo Aasiya, haddana waxaa la sheegaa maroodiga waxyaabaha ugu badan ee loo dila inay tahay faantiisa oo la sheego in lacag laga helo. Laakiin saynisyahanada ayaa sanadadii dambe waxa ay sheegeen in maroodiga uu leeyahay waxyaabo fara badan oo ka qiimo badan faanta isaga markaasi loo beegsanayo ee loo dilo. Qodobka shanaad, inkastoo maroodiga gacantiisa ay aad u weyn tahay oo la sheega ilaa 200 oo kiilogaraam inay culays ahaan gaaraysa, haddana waxa ay awood u leedahay in waxyaabaha yaryarka ah ee aadka u yar ay dhulka ka soo qaadaan, sida bariiska, quraanjada iyo waxyaabaha aadka u yaryar ee ay adag tahay in xayawaanada kaleete ay dhulka ka soo qaadaan. Qodobka lixaad, maroodiga jirkiisa aad ayuu u dareen badan yahay oo xitaa waxaa la sheegaa haddii wax yar ay dusha ugu dagaan hore ayuu ka dareemaa. Sidaasina saynisyahanadu waxa ay ka dhigeen xayawaanka ugu dareenka badan marka ay timaado bariga. Qodobka toddobaad, maroodiga waxaa la sheegaa inuu yahay xayawaan aad u xasuus badan oo meeshii 10 sano ka hor uu maray hadduu mar labaad soo maro inuu xasuusan karo. Sidoo kaleete maroodigii ay isdagaaleen ama ay kulmeen inuu xasuusan karo sanadyo kadib haddii ay mar labaad kulmaan. Sidaas darteedna waa xayawaan aqoonsi badan, wax walbana garanaya. Qodobka sideedaad, maroodiga ilmihiisa marka ay dhashaan horey ayay ka istaagi karaan, laakiin waxaa ku adag in ay wax arkaan. Culayskooduna waxa uu gaaraa 160 kiilogaraam. Muddo ayay ku qaadataa inay wax arkaan. Maroodiga celcelis ahaan waxaa la sheegaa inuu noolaan karo inta u dhaxaysa 50 sano ilaa 70 sano. Maroodigii ugu weynaa ee hadda inta la og yahay waxa uu ahaa Liang Wang oo ku noolaa qaaradda Aasiya. Waxa uuna dhintay 2003 bishii Febraayo, waxa uuna ku dhintay da'da 86. Qodobka 10aad, maroodiga waxa uu soo saaraa codad aad u fara badan oo kala duwan, laakiin midka caanka uu ku yahay waa midka turumbada ah oo uu yeeriyo marka uu farxadda dareemayo, marka uu dareemayo stresska, iyo sidoo kaleete marka uu dareemayo in wax la gaarsiiyey. Sidoo kalena maroodiga waxa uu wax ka maqli karaa wixii ka dhacaya masaafo u jirta 6 mayl. Maroodiga waxa uu sidoo kaleete iskula hadlaa luqad iyaga ay leeyihiin, luqadaasi oo ah in ay isku laabaan gacantooda si ay u muujiyaan inay wada sheekaysanayaan isuna dareemaan. Sidoo kaleete waxaa la sheegaa in gacantooda ay u isticmaalaan inay wax ku dharbaaxaan, wax ku haraantiyaan, sidoo kaleetana ay wax ku kala jibiyaan. Qodobka 12aad, maroodiga waxa uu leeyahay dareen sida aadanaha oo kaleete oo ay ka mid yihiin haddii ay wax ka dhintaan inuu ooyo, inuu sidoo kaleete calool xumaado. Sidoo kaleete waxaa laga yaabaa maroodiga in sanadyo kadib wixii mar hore ka dhintay uu dib u soo xasuusto. Waa sida ay saynisyahanadu sheegayaan. Qodobka 13aad, waxaa la sheegaa maroodiga inuusan gadaal u soo laaban karin. Inta badanna waxaa la sheegaa soo noqoshada inay ku adag tahay.
waxyaabaha qaar ee laga sheegay ayaa waxaa ka mid ah wixii uu fiijinaya haddii ay raadkiisa ku soo celiyaan way adag tahay inuu si dhaqso ah isu soo celiyo waxa ayna ku qaadataa in masaafo ah inuu dib u soo laabto. Qodobka 14aad maroodiga waxaa la sheegaa waxyaabaha keliya ee caalamku ka cabsanaya inay tahay quraanjada iyo sidoo kaleete shinnida. Beeralayda Afrika iyo kuwa Aasiya ayaa inta badan waxaa la sheegaa in beerahooda ay ku kaydiyaan shinni si marka uu maroodiga usoo gala beerahooda shinnida ay ugu yaacdo isna uu uga cararo. Inta badanna waxaa la sheegaa inuu aad uga baqo shinnida. Qodobka 15aad maroodiga waxa uu ka mid yahay xayawaan tiro yar oo aanan boodi karin. Maroodiga si walba oo ay noqoto ma boodi karo, wax walba oo ka hor yimaada inuu ku istaago mooye kama tallaabsan karo. Aad ayayna lugihiisa isugu dhow yihiin. Qodobka 16aad maroodiga oo lagu sheegay inuu yahay xayawaanka ugu baaxadda weyn uguna awoodda badan beriga markii loo barbar dhigo nibiriga waxa uu noqdaa sida quraanjada oo kaleete, waxa uuna u muuqanayaa wax aad u yar taasi oo isaga ka dhigaysa muuqiisa mid aanan markaasi la dareemaynin. Qodobka 17aad maroodiga keliya dhagaha waxba kuma maqlo ee lugahana wax ayuu ka dareemaa. Wax walba oo dhulka dhexdiisa ka dhex yeeraya lugaha ayuu kasoo dareemaa, markaas kadib ayaa maskaxda ay u gudubtaa. Waxaa xitaa macquul ah in maroodigu uu dareemo marka uu dhacayo dhul gariir. Qodobka 18aad maroodiga inta badan waxa uu jecel yahay inuu dhiiqo isku dhoobo, taasina waxaa loo macneeyey inuu mar walba kaga gaashaanto kulaylka baaxadda badan ee dhulka isaga uu ku nool yahay. Sidoo kaleetana waxyaabaha sida kinaacada iyo cayayaanka kaleete inuu iskaga fiijiyo dhooqadaasi uu jirkiisa ku dhoobaya. Qodobka 19aad maroodiga waxaa la sheegaa in 24 saac 16 saacadood oo ka mid ah wax uu cuno. raashinka uu cunona cadadiisa ay gaaraysa maalinkii inuu cuno 300 kilogram oo raashin ah una badan caws. Qodobka 20aad maroodiga waa xayawaanka keliya ee marka uu muraayad isku eego isgaran kara inuu isaga yahay. Saynisyahanadu waxa ay ku doodaan maroodiga inuu caqli leeyahay, caqligaasi oo ah marka uu muraayad isku arko inuu dareemi karo in shaygaasi muraayadda uu ka dhex arkay uu isaga yahay. Qodobka 21aad maroodiga waa uu ka duwan yahay xayawaanka kale ee naasleyda ah, kuwaasi oo inta badan 2 jeer bes ilkahooda ay soo baxaan. Naasleyda waxaa caado u ah ilkaha hore marka ay u soo baxaan inay ka daataan oo kuwa mar dambe aanan dhicinin ay u soo baxaan, laakiin maroodiga ilkihiisa marka ay dhacaan mar walba waa ay soo baxaan oo waxa uu ka mid yahay xayawaanada tirada yar oo ilkaha marka ay ka dhacaan dib ay ugu soo bixi karaan xilli walbo. Qodobka 22aad maroodiga waxaa la sheegaa in gacantiisa ay ka kooban tahay 40,000 oo murqood, taasi oo gacantiisa ka dhigaysa xubinta ugu awoodda badan jirkiisa. Qodobka 23aad celcelis ahaan taariikhda inta la og yahay maroodigii ugu culayska badnaa ee soo maray waxa uu ahaa 13,000 oo kilogram, isagoo dhirirkiisana uu gaarayay 13 fiit. Qodobka ugu dambeeya ee 24aad maroodiga dhididkiisa waxaa la sheegaa inay tahay midda ugu sidka dheer marka ay timaado uurka. Waxa ay caloosha cunuga ku wadaa ilaa 22 bilood, taasi oo ka dhigaysa naasleyda keliya ee ugu shinka dheer. Daawadayaal, intaa waxaynu kusoo koobaynaa 24kii shay ee uu ugu duwanaa maroodiga xayawaanka kale. Tani intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale, waa anigu inkaga tegaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.